dadka markaa la sheekaysato tuulooyinka jooga dagaal oogayaasha yaqaaniin kuwa nabadda ka shaqeeya ma yaqaaniin nabadda kuwa ka shaqeeya oo u dhagan nugul ma yaqaaniin rag hadda tiro badan oo nabad loo aasayna ma maqal rag tiro badan oo la yidhi ayagoo nabad ka shaqeynaya ku dhinteen oo la aasay gobolkan aad uguma maqal waa jiraan mase badna laakiin dad badan oo ayagoo colaad ka shaqeynaya ku dhintay oo loo aasay waa naqaanaa kuwa la dulmiyena waa naqaanaa oo ayagoo dagaal ku jirin la dilay dhinac kasta ha ahaadeen walaalayaalow maanta meeshaan aad joogtiin iyo casriga aad joogtiin iyo cimriga aad joogtaan meeshaanu galabta geesiga nabadday u baahantaha geesiga dagaalka uma baahna jidka aan ku soconno meeshuu ku dhammaanaya inaan naqaano waa jidka aan ku soconnaa wuxuu ku dhammaanaa meeshii ay ku dhammaadeen jidadkii aad marteen ee idinkoo isla jira oo isku reera iyo kuwo kale oo isku reera aad soomaali ku duusheen ee isku duusheen ee isbaabi'isaan qabyaalo darteed ee keentay intaad soo noqotaan idinku inaad islaysaan ee keentay kuwa safka iskula jiraa maanta inay maalmo ka hor islaayeen dadaan run isku sheegino beenay isku sheegaan waxaan idin leeyahay walaalayaalow waa naga garaad badantihin waana naga caqli badantihin laakiin waxaan u malaynaa mushkuladaa jirta u baahan in la baaro bahasha qabyaalad la yidhaah haddii caana lagu maalaayo oo wax lagu gaaraayo oo la kala adkaanayo oo dhul la kala qabsanayo oo sharaf la kala helayo waa soo aragteen nooma dhinna nabadda ma tijaabin karnaa waa naqaanaa ragga ama lugaha go'an ama gacmaha go'an ama madaxu maqan yahay dagaalada qabiilka ku dhaawacmay dhulalkaan jooga waa la wada yaqaanaa rag nabadda u gacmo go'an ma heli karnaa oo u luga go'a kuwa ilaahay uga fogaaday oo aan ogahay inaan niyadda ku wada haysaan isleediin hebel ninka leeraa meeshuu ku dhintay xumeeda meeshuu ku dhintay aad qalbiga ka wada og tihiin oon afka laga sheegi karin ma ku bedeli karnaa kuwa aan dhahno hebel ninka leeraa meeshuu ku dhintay wanaagsaneeda oo fiicneeda ma ku bedeli karnaa waxaan ogaa intiin halkaan fadhisa oo qabiilada ka socda mid kastoo idin ka mid ah waa dhibane gurigiisa tacsiya ka jirto si dadban iyo si toosan labadaba ninkii kaa dhintay nin maanta dhihi kara jihaad ku dhinto janno jira ninkii un raganimo iska dayayo un rabo inuu warka iska leexiyo waa dhihi karaa ama rabo inuu wiilal kale ku qaldo kuwa kale rabo inuu qaldo say biri dagaalka u galay kaas wuxuu ninkaas rag dhalay ayuu ahaa reerka u dhintay aaw guriga reerka u dhis ninkii waa dhintay guriga reerka u dhisay aaw biilkii ilmihiisa reerka u qoray aaw masaajidkii u sadaqeeyeen aaw sharaftii ammaantii uu yeeshay aawe walaalayaalo waxaan ku noolnahay camal shaydaan oo been lagu qurxiyey waa quracdaas maran oo wax joogala iyo wax daaqa iyo wax dega ayaad isku haysataan waa nugu yaryihiin kii horena waa bannaanya tacsiyaad ku wada jirtaan guryihiinni adduunsan dhibna uma aragtaan weliina mid kale sii dishaana rabtaan waxaan leeyahay odayaashu waa dadaaleen kolley dhibaa haysta waa un ay raggeenaan leekaayeenna in colaaddu socotay waa u malaynaa ragga dhallinyarada halkan jooga ayaan rabaa inaan farriin u diro iyo kuwa kalena daawo doona cimriga aabbayaashiin iyo adeeradiin dagaalka ku gaareen ha ku gaarinina shallayga ay qabaan maantana ha qabinnina maantaad fursad haysataan aakhiro cid lagu soo ammaanay oo qabiil u dhimatay haddaa ogtihiin ku dayda waa okay waa fiicanta qof qabiil u dilay laleeyahay alla ninkii hebel ahaa jannadii meel fiican inta aayad loo helo sheekh aayad kor saari karo waa fiican tahay wada hawsha niman guriga ku helay oo ku tacbaday oo ku xoolaystay oo ilmahoodii wax ku barteen haddaa aragteen wada hadday beddelkeeda tooy qoomama tahay oo hooyadii wiilkeeda dhintay ooynayso oo adiga walaalkaa waaye ooynaysid oo midka cuuriyaankaahu shallaysan yahay maxaa jidkan ugu socotaa waxaan rabnaa bini aadam noolaan nahay caqliga iyo dareenku inuu na hogaamiyo ummadda ilaahay wuxuu garashada u siiyey inay go'aan ku gaarto waxaan aaminsanahay marka qabiilinta isku yimaado uu ku tashado aan reer hebel ku duulno waxay ku ballameen aan caqliga iska qaadno aan been isku sheegnay ku heshiiye walaalayaalow caadifadda waa fahmaynaa hal maalin ma baxayso
beenta waa fahmaynaa hal maalin ma baxayso shaydaanka laftigiisu markuu kugu bato oo guri kaa dhisto ilaahay waa dhici kartaa inuu iimaanka hal mar kuu soo dejiyo laakiin tartiib tartiibay u badan tahay bal horta meeshii aan galabta geedkaan intaanan imaan joogna meel ka duwan annagoo joogna caawa meeshaan aan ka tagno waxaan idiin sheegayaa ilaahay uu ogyahay labada dhinacba waa la socdaa waxaad isku haysataan been waa propagando waa been waa waxaan la taaba karin waa waxaan galabtay haddii faraha looga qaado qolo kasta waxa ay dalbanayso aan wax ugu soo kordhaahu jirin wax uga halaaba maahan waxaan ogahay waxaa isku haysataan maanta qoladii faraha laga geliyo hal natiijo ay caaw la hoyanaysa ma jirto hal xabo ay la hoyanaysa ma jirto waxaa isku haysataan raganimo waay oo shaydaan qurxiye shaydaana qurxiye geesiga maanta meeshaan ay u baahan tahay nin shaydaanka hortegi kara waa nin shaydaanka ku hor ordi kara maaha nin shaydaanka inta ka soo horjeesta dhihi kara waaye walaalkay beenaad ku socotaa dulmiyaad ku socotaa nin odagiisa gacanta ka qaban kara waaye oday wiilkiisa gacanta ka qaban kara waa waxaan la yaabay meeshaan dhiigga muslimka sida loo fududaystay ma aayadahan la isku raacsanayn oo dad aayadaha khilaafsanaa jiro ma waxaad aaminsantihiin in qaybadan ka mid gaala yihiin sidee ku dhici kartaa inaad masaajidkana aado halkaana qof walaalka oo muslim ah ku disho sidee isku qaban kartaa waxaa ka cararayso masaajidka ka gelaysid miyayna cadaab ahayn maxay yihiin waxa masaajidka loo galayo horta masaajidka maxaa laga rabaa masaajidka soo ilaahay naxariistiisa lagama rabo war ninka ragaya galabta inta go'aan qaatay yiraa colaadaas anaa go'aan ka gaaray anaa geesi anaa banaanka taagan qabiil ma ahi fidna ma rabo muxuu ka baqa miyaanay ahayn wuxuusan aaminsanayn ilaahay ballanqaadka u bixiyay inuu run yahay ilaahay ballantu qaaday inay run tahay miyuu qofkaasi ka shakisayo wuxuu isleeyahay waxaasniyow mise ballanta ilaahay waxaa kala weyn warka shaydaanka iyo muuqaalka shaydaanka oo aan natiijada lahayn dhallinyarada dhimanaysa miyaanay taariikhda aqoonin oo aanay ogeyn abtiyaashood iyo adeeradood meeshay ku dambeeyeen miyaanay ogeyn shalay kuwii dagaalkii magaaladan ka galay oo dhintay xaggey jiraan maantadan aan joogno shalay kuwii galay xaggey jiraan kuwa dhaawaca ahu oo isbitaallada yaallaa maxay ku dhaawacmeen kan dhintay muxuu helaa adduunyada waxa loo xarbiyaa waa inaad ama adduunyo waxesho ama aakhira waxesho soo maaha dadka dagaalkan gala dad adduunyana maaha dad aakhirana maaha labadaba maaha dad adduunyo maaho tacab kama helaan oo nololo kama soo gasho oo nimanka dagaalkaas ku jiro aan labada dhagax ku soo arkin nimanka meeshan ugu foosha xun waa dadka dhulkan jooga nimanka ugu caataysan oo ugu rafaadsan oo dhibka ugu badan ka muuqda waa adduun halkaasay ka joogaan aakhirana cadaab uu ka joogaa waa kishuuq halkaas noogu sheegayo labada muslimee seeftoodu kulanto labadaba waa ahlu naar marka ma xadiiskaadan rumaysnayn ma aayadaadan rumaysnayn ma waxaanan ogeynaa jira walaalayaal waxaan warka kusoo gabagabaynaa waan warka kusoo gaabinaa annagu waa idinka tegaynaa waana idiin soo noqonaynaa waana idiin soo noqonaynaa hal midaan idinka codsanaynaa wiilashiinaana nabaddiinnaan rabnaa dan siyaasadeed kuma wadanno xisbi kama soconno xoolo kuma sidanno waxaana dhibayso dadkeenna inay isdilaan waxaana dhibayso tacsida guryaha taallo waxaana dhibaysa qaxa waxaana dhibaayo foolxumada iyo ceebta iyo aakhira beelka waxaan rabnaa xujada inaan gudanno waxaan idinka codsanaynaa idinkoo ka duwan meesha aan idinkaga tagnay meel ka sokaysa jooga inaan idinkugu nimaan walaalayaalow misena walaalayaalow adeerayaalow waxaan idinka baryaynaa nabadda qalbiga u fura dhib wax aad ka heshii weysaan idinma dhex yaallaan qalbigiinaa xiran qalbigiinaa nabadda ka xiran oo shakiyaa xiray shaydaanaa xiray afkaad nooga sheegaysin shaydaanka inuu baxay ma bixo shaydaanku wuxuu baxaa geesiga nabadda marka la helo qolaa libinta qaada doontee ama qofaa libinta qaada doonee waana yaan la dooginayaan wuxuu dhihi jiray waa la doogayayaan la dacaroone taariikhdu xumaha iyo nabaddiidnimadu nin kastoo inaysa ku raacin ku dadaa